السلام عليكم سو دhowaada daawadayaashada qiimaha badanow waa mar kale iyo walaalkin xasan maxamed waxaan maanta idila wadaagi doonaa laba qodob oo naftaada iyo naftaydaba u muhiima waxaan jecelahay inay say tahay aad uga faa'iideysan doontaan daawadaha qiimaha badanow waxaan jecelahay inta aadan idin soo gudbin labadan qodob in aad noo saarto subscribe haddaad nagu cusub tahay maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin haddaba ku soo dhowaada nolol wanaag qodob haddaad ku dabaqdo waxaad noqon doontaa qof samayn kara horumar weyn wax kastoo uu jecel yahay inuu guul ka gaadho ku guulaysan kara qodobkeena koowaad waa joojinta cabsida haddii aad tahay qof cabsi badan kana baqa had iyo jeer xaaladaha nololeed ee uu ku jiro tusaale ahaan waxaad qorsheynaysaa inaad bilowdo ganacsi ku gaara sidoo kale waxaad haysataa lacagtii ama dhaqaalihii aad ku bilaabi lahayd hase yeeshee waxaad isleedahay bilaad ku fashilmataa bilaabida ganacsigan adoo aan bilaabin ayaad ka sii cabsanaysaa inaad ku fashilmato ogow inaadan xaqiijin karin inaad bilowdo ganacsiga marka waxaa lagaga baahan yahay inaad iska tirtirto cabsidaas oo kale maxaa yeelay waa malawaal ay maskaxdaadu sawiranayso waxaanay ka hor istaagaysaa guulo badan oo aad xaqiijin lahayd runtii waxaa maanta dadkeena badankooda ka hor taagan waxyaabo badan oo nolosha waa cabsida qofkii oo aan wixiiba bilaabin uu isagu isku sii abuurayo cabsidan oo qofkii dib u dhigaysa waxaan rajaynayaa inaad ila fahantay qodobkaas qodobkeena labaad waa go'aanka dadka qaarkood ma qaadan yaqaanaan go'aan qaar inaga midana waxay qaataan go'aan uuna qofku ka fiirsan hase ahaatee ku keenta caqalad iyo shalayta uu ka shaleeyo markuu gaadho hirdambeedka go'aankaasi ogow in go'aanka aad maanta qaadatid aad saamayntiisa helaysid berito saad maanta uu go'aankaagaasi noqdo ayay beritadaaduna noqon markaa waxaad u baahan tahay inaad marka hore la fagurto oo aad ka fiirsato go'aanka aad qaadanayso muxuu kuu keeni karaa calqalado sidoo kale maxaa faa'iida iyo guul ee ka heli kartaa go'aankaas ugu dambayn alle tala saaro waxaan rajaynayaa inaad labadan qodob si fiican u fahantay noloshaadana aad ku dabiqi doonto inta aynu ku kulmanno fiidiyooga xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu